أنا أنا كده مقنعي سومالي ولنبا أنا ما ركتي عن رأيي أنا كديبنو باقنا بدأنا نديرنا أنا أقول مقعي وحلين فارح كذا وحان هالكم كفردية جودي وقرمتك civil society وحان هاي ماذا هاي أدي اسم اليسا وحان لنا هاي دمان ومدى الصوماليات ملك جوكتو إني دلبضان إني مارتي لوضع بيلوت walaalaha ah ee dariska ah isku diinta isku afka ah ee xididkii xigaalada ah in ma aragtay ay joojiyaan dagaalka cid kasta oo Soomaaliya xil ka saaran yahay inay ka qayb qaadato joojintiisa waxaan leenahay haday yihiin odayaasha dhaqanka labada beelood dhalinyarada ciidanka maleeshiyaadka dadka xoolo dhaqatada ah ee dhalinyarada ee ma aragtay hubaysan dhamaantood waxa ugu baaqaynaa in dhiig islaam uusan fiicnayn in qof muslim oo walaalka ah ana disho aysan fiicnayn in maxay ahaydeen diiniyan iyo maaragtay maadiyan midna aysan ku fiicnayn aakhiradaadana ay ku halaabayso waxaan leenahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay in dad ehel oo walaalo ah oo xigta ah oo maaragtay ehel ah oo daris ah oo inta isla soo caanamaalay oo meel ku wada dhashay in maanta uu shaydaanka ka xoog badiyo oo ay xasuusan waayaan ilaahay iyo maaragtay abuuristiisii wuxuu u abuurtay ahayd kaliya inay caawidaan inay maaragtay ay maanta ay dhiiggoodii daadiyaan oo wiil maanta u baahneen inuu maaragtay dhinto iyo inuu maaragtay gabar aan u baahnayn inay barakacdo iyo ilmo saqiira iyo xoolo bahaahin ah oo aanan loo baahnayn in maanta xabad lagu dhufto intaba wax loo aabayeelay jirin in maaragtay hawshaasi la joojiyo ilaahay laga baqo oo ilaahay u noqotaan oo maaragtay aad muslimnimadiina iyo islaamnimadiina aad xasuusataan ilaahay waa mahad iska leh maanta annagoo halkaan iskugu nimid waxaan warkaan u soo jeedinaynaa dadka walaalaheen ah dhiigoodu isku qubanayo dhibaatada maanta haysato waxaan rabnaa qof walba bini'aadanka inuu ogaado in ilaahay asaga abuurtay asagana uu la xisaabtamayo aayadda quraanka oo aqriya hadeer waxa weeye qof walba oo dadka maanta diriraya muslimiin way dadka muslimiinta ilaahay wuxuu yiri ha fiirisan naf walba oo ilaahay ka baqdo ha fiirisan waxay bari la kulmayso bari waxay la kulmaysaa ogaato ilaahina waa in la socda waxa aad sameeynaysan ee ilaahay ka baq ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم هنقوننا كوا alla iloobay dadka maanta sida jahliga u dirirayo oo maanta aan mataqaana diin ku dirireynin oo wax kale ku dirireynin ee adduunyo aawadeed ku dirirayo waxa weeyo waxay iloobeen Allah hadaad iloodeen waxa weeye naftiina la inahusinayaa shaydaan baa idina wareegayo waxa weeye adduunkana waad ku dhiboonaysan aqarna cadaabka mudanaysan dadka maanta isdilaya waa laba muslimiin labada muslimiinta ana ilaahi mataqaana nabiga wuxuu yahay al-qatil wal maqtul kullu fi an-nar waxa weeye midka wax dilay iyo kan la dilay labada waa naarbi sababta kan kale wuxuu rabay mid kale inuu dilo inkastoo laga yaabo dad guryahooda ayagoo jiifa in lagu dilay ayagoo wada maray lagu dilay ay dhici karto oo laga gardarnaa ay dhici karto ama laga xaqdarnaa ay dagaal ku jirin ay dhici karto yaa dhici karo marka waxa weeyo waxaan idin leenahay annaka oo igula hadlayno waxaan ku dhahaayay codka waxaan ku dhahaa civil society-ga kula hadlayno anoo ah imaam Rashiid Cabdi Axmed maxaan ku dhahay gudoomiye ku xigeenka dalada Junsa maantana gudoomiyaha gurmadka arrimaha gurmadka gudiga bulshada gudiga civil society-ga gudoomiyahooda afkooda aan kula hadlayo waxaan leenahay ilaahay ka baqa adduunkan waa laga tagayaa waa dhamaanaya nin walba waxa weeye tiisa ayaa haysato barrito ayuu mataqaana qabri galaya markuu qabriga galana waxa weeyo waxa ku raacaya la yiri amalkaada iyo ehelkaada iyo maalkaada ku raacayo ehelkaada iyo maalkaada waa soo noqonayaan amalkaada wax kugu harayo amalkaada markuu haro malaa'ig ba ku weydiinaysa ku mataqaana ku weydiinaysa waxaad karabsatay iyo waxaad mataqaana la tin meesha sida aawadeed walaalayaal waxaan rabnaa inaad joojisaan dagaalka aad joojisaan waa idin soo soconnaa waa wada fariisanaynaa dhulkaan fariisanaynaa waa iswarsanaynaa qof walba xaqiisii kii gardarnaa baan ogaanaynaa walaalayaal naga aqbala ilaahay baa yiri dhaxgal walaalaha haday diraan amar ilaahay way
idhaxgala kan gardarana qabta ilaa uu idiin qabsoomo si cadaaladan u xukuma waxaan isku daynaa inaan indhex galno si cadaalad idin xukunno walaalayaal noo qabsooma allah idin badbaadiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu